marka hore waxaan aad idinku mahadnaqayaa ka soo qaybgalayaasha xafladdan qiimaha badan leh ee suugaantii abwaan guuleed yuusuf axmed oo halkan uu suugaan muglah inoogu soo bandhigay. waxaa kaloo u mahadnaqayaa mulkiilaha goobtan caawa aynu joogno Saciid Sheekh Cumar iyo bahda gurmad oo runtii ka soo shaqeeyay iyo cid kale oo runtii xafladdan intii soo dabariday ee qabanqaabisay. waxaa kaloo mahadnaqii laga ilaawayso baxda saxaafadda oo runtii caawa dhan halkaa taagnaa duubayay hubinayay in ay wax walba si wanaagsan ay u dhacaan oo adduun waxa la magac baa ka hara halkaa wixii caawa halkaa ka dhacay dee waynu iska ilaaweynaa dadka kale inala ogaan maayaan haddii aanay saxaafaddu aanay halkan joogin. anu saddex qodob oo degdeg un baan jecelahay inaan halkan ka yar idhaahdo. mid waxa weeye abwaan guuleed suugaantiisa on yar faallo yar ka bixiyo, afka soomaaliga iyo suugaanta oon in yar faallo yar ka bixiyo, iyo haddii waktigu inoo saamaxo in yaroo kaftan ah oo gabay yaroo kaftana iyaduna aan anigu laftirkaygu aan halkan ku yara dhigabagayo. horta abwaan guuleed yuusuf axmed waa aragtay dee isma lahaa da'diisa iyo runtii suugaanta mugale halka uu soo dhigo. waana qof dhaqankiisu wanaagsan yahay iyo dabeecaddiisa iyo dadla socodkiisu. dadka qaar waxaa jira runtii sugaan yahanaa laakiin aan dadla socod lahayn ama markaa isagu waa shaksi wanaagsan oo sugaan wanaagsan leh oo dadla dhaqan leh dhaqankana haya runtii da'diisana ka weyn. waxaan ku tirin karaa odhan karaya dadka dhallinyarada ah ee suugaanta u soo kacday ee inoo bedeli doonta abwaanadii waaweynaa in uu safka hore kaga jiro ayaa runtii dad badan oo ay isla qirayaan. marka waxa weeye kulligii inaan idinkuna wada taageerto in caawa dhegaysateen waa ku mahadsantihin. shalay toole mise ayaan u malaynaya inay ahayd ayaa waxaa dhacday horta af soomaaliga waxa la yidhi wuu sii dabargo-ayaa intaa waa dadka laga nexiyaa waa la yidhahdaa laakiin weli suugaanta way nooshay sidii horeba loo sheegay oo suugaan noocan oo kale haddii dhallinyaradu ay tirinayso waa suugaan weli af soomaaligu waxa weeyaan waxbaa kusii duugan. shalay nin aanu saaxiib nahay oo Saciid Boodsana la yidhaahdo ayaa wuxuu xasuusiyey berigan dhallinyarada ahayn ee magaalada Hargeysa aan kusoo koraynay ayaa waxaa jiri jiray nin la yidhaahdo ilaahay naxariis jannada ka waraabiye aqoon-yahan weyn ah oo la odhan jiray aadan daraawiish maanaan lahayn maxay ahayday inaan meel maxfadoolan isugu nimaadno laakiin maqaaxyo halkaa Hargeysa gudaheeda ku taalo maqaaxyada ina garow ninkii garanaya ayuu habeenkii lecture looga jeedin jiray. ninkaas wuxuu ahaa nin dhallinyaradii sheekh laga diray ingiriiska wax ku soo bartay. marka sugaanta iyo soomaalida iyo dhaqanka iyo sayniska iyo xisaabka wax walba wuu noo dhigi jiray oo habeenkii lecture ayuu halkaa ka bixin jiray. habeenkaad maqan tahay wuxuu ku odhanayaa war beeshii caawa lecture weyn baad ka maqnay. ninkaas haddaba waxa dhacday wax aan weli uu shalay xasuusiyey Saciid Boodsana iyo xasuusiyey hal shay oo aan u malaynayo weli inuu ka maqan yahay afka soomaaliga oo ninkaasi berigaan loo sheegay malaha waaba dee beri hore ayay ahayd. wuxuu yidhi inagoo marka tacliintan aynu baranayno waxaan inanka secondarygii buu ka baxay haddana waxa la bachelor buu qaatay haddana waxa la masterate buu qaatay haddana waxa la ninka professional degree buu qaatay haddana waxa la PhD buu qaatay soo maaha. ninkaasi af soomaaligu berigaa u sameeyey erayadaas oo dhan erayadii buu shalay xasuusiyey ninkii Saciid. wuxuu yidhi ninka secondary ka baxa marka isagoo adeegsanaya suugaantii soomaalida wuxuu yidhi ninka secondary ka baxa waxaynu odhanaynaa buuri gorofle ayaynu odhanaynaa buuri. ka bachelorka qaatana haanle baynu odhanaynaa haantiiba ka yaro weyn gorofkii. ka masterska qaatana waxaynu odhanaynaa buuri saable. ka professional degreega qaatana masafle ayaan odhanaynaa buuri. haddaba kii PhD-dana waxaan odhanaynaa buu yidhi aagaamo jiite. wax allaaliya wixii guriga yaalay oo dhan buu dee jiidanayaa aagaamo jiite.
ayaa odhanaya ninka PhD-ga haysta buuri horta waxaan u malanayaa weli af soomaaliga dee qolay cabdallaabe aadu iyo halkan abwaan axmed awgeedi halkan isnabayna waa joogeen in runtii dib loo eego digriigan aynu qaadanayno aynu marna secondary buu qaatay wallahi anu bachelor baan haystaa wallahi double masterate baan haystaa war waxa aynu isticmaalo dee dhaqankeena ahaa ee aynu naqaanay ya ninka PhD-da haysana agaama jiitaan dhahan waa iska horreyn baan malanaya intaasna haddaba hadalkayga aan idinku dheereynayn ayaa waxaan aan doonayaa inaan anna idinku soo khatimo gabay kaftana berigii hore gabaygana waxa weeyaan mid beri hore aan tiriyey waana kaftan oono ma aha wax serious waa gabay xayar ama gabay dheeg allah u naxariistay ninkii la odhan jiray abwaanka ahaa Ismaaciil Mire ayaa berigii daraawiishta diyaaradaha lagu kiciyey ayuu geeliina dhiciddiisii badatay ayuu ari iska dhaqday arigii baa markii dambe xilloor meel burcan la yidhahda baa la geeyaayo xoolaha oo lagu iibiya seelad ku taalo halkaasaa sonkor iyo bariis iyo lagu soo bedesha sidii buu yeelo markaa islaan jaarkiisa ah oo u dhoweyn ayaa u dhiibatay xoogaa neefaha oo markaasuu burca geeyo adigu markii wixii uu kala kulmay sayladii burco ila weligii muu arag saylada ayuu gabay ka tiri markii soo noqday islaantii tiri bal dayna xisaabtii wixii markuu ku wareeray daba gabaygaasna aniguna beri bedelay oo berigan anigu igu horreysay dalka ku soo noqday 1997kii 97 baan halka ku soo noqday airportka Hargeysa dee imika airportka fiican ee caalamiga ah laakiin beriga wala saddex yaacayo sida saylada burco ugu wareeray wadaadku baana ugu wareeray beriga markaas aniguna gabaygiisi xayirayo aan bedelo aniguna xaaladaydii gabay Hargeysa ka soo degay oo shadadahaygii waxa iga la boobay oo aan iska wareeray ayaana xaaladaydii ku soo duulay marka isagu wuxuu oranayaa kii hore yaro tusaya Ismaaciil Mire si aad u fahantaan ka dambe isagu wuxuu niman yahow awooyo abkaan sheegto anigu abadkay ma arag iibisa lacag abti wax lacag la ma arag adduun baan lahaan jiray ragga ka israa waaye ololahan wax kaga qaybsan jiray ulul fduulaan marun baan amaamid waxaan aabahay falinay afar baan u sii dhahay tuuladii awrta loo raray albaabkii burcaan tagaano aaladii wadee aminkii la yimi sidii eegalay sugay ogtii hore inagu kacin ari dilaalkii dar iimaanka laga qaaday ee ilaahaayeen ama kaaga goortii wankii adhaxay tuujay ya waa gabay wuxuu ahaa runtii gabaygaas uu halkaas horta isagu mariyo uu isagu ka hadlay aniguna markaas ana kaygii de xayirayo ana waxaan idhi niman yahow ayaan amankii aan dhoof arligii dalkeeniyo ma arag aqalkii oodnaay adduun baan lahaa soo tabciyo ugu tacliineed olole xoogsiyo baan ku jiray ululuf gaaleede marun baan amaamiday inaan safar aloosaay afar baan airline kusii dhaxay agabkii reeraaye airportkii Hargeysa ka degay airline samarkii aminkii la yimi sidii eegalay sugay ogtii hore laygu yiri keen alaab culus qaar noor shaxaad eegayay ila ahaayeen ama kaaga goortii sarafkiiga ilaabeen inta iyo ma hadii la islaaqay asraartan kiba qalbiga aad u xidheen itaal daru shandadii heshay inaan kii roonaay afka reer Hargeysuhu yaqaan waa ka oodnahay intaasoo saraf iyo cashuure igu aluubeeni anigoo arkayay rasiid ugu abaareen ana halkaas aan ka galay oo berigaas iska kaftan buu ahay oo gabay dheer buu ahay horta waxaan ku soo gabagabeynayaa oo leeyahay horta runtii caawa xaflad qurux badan baa halka ka dhacday waana loo baahan yahay dhalinyarada in lagu dhiirigeliyo suugaanta iyo akhriska iyo qoraalka wax loo baahan yahay markuu qofku akhristo wacan noqdo oo in badan akhriyo ayuu marka dambana noqonayaa qoraal wanaagsan oo wax qora oo wax qofka akhriskuna wuxuu koriyaa maskaxdiisu koriyaa marka akhrisku maaha inaad buugaag af Ingiriisi akhriday akhriska dhaqankaagii Soomaaliyeed ayaad akhri karaysaa akhriska maaragtay waxaad akhri karaysaa buugaagta sheekooyinka buugaagta suugaanta gabayada oo duuxi karaysaa Soomaaliga waxa laga yaabaa in dadkiinu inaadan mii tegin anigu berigan yareen mii fasax walba mii baan la geyn jiray laakiin daymanka dhalinyarada iminka mii lama geeyo marka waxaad ku baran karaysaan afka Soomaaliga idinkoos gabayada iyo suugaanta iyo dhuuxa oo xiiseeya maskaxdiina way kobcinayaan waxaanay kobcinayaan
afkiina hooyo ayay kobcinayaan waxaan kusoo gabagabaynayaa oo leeyahay guuleed hambalyaan leenahay halkaa waa guuleed aad ka wadid halkaa ka wad sugaan mug leh oo aanad cidna uga habaran sida lagu yaqaanay ayaad soo daynaysaa waanu dhegaysanaynaa waanu hufaynaa waxna waa laga baranayaa taariikhna way noqonaysaa ilaahayna waxaan uga barayaa abwaaniinteena waaweyn ee xanuunsanaysa sida laynoo sheegay abwaan hadraawi ugu horeeyo iyo xasan ganayo iyo inoo iman kari waayey aadan tarabi iyagana ilaahay caafimaad ha siiyaan leeyahay kulligiina waa idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu